iskuulka ubad kale ka soo baxayana waxaan doonayaa ubad hogaamiye Jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqdaan sida barqad inagu faanna maanta uu noqday markaa xildhibaankii ugu codka badnaa horumar baa dalkeena ka socda oo ogtiin maalgashi fara badan baa wadanka ku soo socda dekedii baa la balaariyay wadooyin fara badan baa la dhisay waxa soo horumar ah wax laga faa'iideysan karay aqoon baa laga faa'iideysan karay waa laga baxay markaa waqtigii qabiilka iyo qabyaalada iyo qaraabakiilkii xal sameey jir qofka maxaa taqaanaayo muxuu yaqaanaa markaa lagu shaqaaleysiinayaa xukuumaddu markaa hufnaantaas ay soo kordhisay marka waxaan u baahanahay inagu inay dadkeenu inay wax bartaan waxbarashada runtii daama leh intii halkan joogna malaha suldaanka inagu imaan malaynayaa waxaa loo baahay qof kasta inuu aqoonta heerku ka joogo ma heer kale ku sii daro haddaad dugsi hoose aqoontaada tahay inaad dugsi dhexe ka dhigto haddii aad waxba akhriyi karin inaad sida wax loo qoro wax loo akhriyo barato haddii aad jaamacad heerkaaga joogin inaad digrii kasii sarreeya aad qaadato waayo waxay la tartamaynaa markaa wadamada jaarkeena bay la tartamaynaa Kenya oo kale imika haddaan eegno waa dhowr iyo 50 milyan literacy rate-kooda haddaad eegto boqolkiiba malaa 87 something malaa 90 meelaha 90% baa dadka waxna qora waxna akhriya inaga dadkeena waaweyn markii la qiimeeyay inta wax qortay wax akhridaa waxa weeyaan oo boqolkiiba 6 waa nasiib darro bay dhinaca ka noqonaysaa waayo qof dhan oo nool oo Ilaahay abuuray oo dee aayad quraan akhriyi karin warqad qoran karin hatta salaadiisii cibaadadiisii ba khatar gelaysa noloshiisii kale horumarkiisa khatar gelaysa dhaqaalihiisa caafimaadkiisa khatar gelay hadduu dhakhtarku warqad yar khaldan u soo qoro deegaankiisa gacanta ku soo qaatay oo badantay marka waxyaalaha runtii laga naxeeyay halista waxa weeyaan anigu maaliyeed dukaan baan wax ka iibsaday xaafad kamid ah xaafadaha Hargeysa ku yaala markaasi lacagta u dirba ay aanu diray ugu jiray marka islaan weyna hooyada haysatay marka dukaanka ay ugu tiyo hooyada lacagtina ku soo dhacday marka biin koorkeedii wax taay yeedis aad baan runtii u naxay waan warwaray wax kale kama warwarin aan sidii bal mid kale habar qabaado halka taagnaa la oo dee lacagta ugu jirtaba ka qaata maxaa soo noqonaysa marka barnaamij balaaran bay wasaaraddu bilowday iskuul kasto dawladeed gali ka dambe waxa lagu talagalay in dadka wax ku bartaan marka dadka waaweyn gaar ahaan runtii dadka jecelna horumar naftooda gaarsiiyaan waxaan ka codsanayaa inay barnaamijka ku biiraan waxbarashadii aqoonta runtii waxa horumarka lagu gaadho weeyaan waxaan jecelnahay markaa inay ka faa'iideystaan ubadkana waxaan baraynaa dadka waaweynna waxaan baraynaa iskuulkana runtii waan ku ducaynaynaa